waxaan idin mahad celinaynaa soo dhaweynta aan soo dhaweyseen si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta oo hawshaan waqti dheer hawl geliyey waqti badan geliyey oo aqoontooda ugu daray oo maanta heerkan soo gaarsiiyey dib u heshiisiintii iyo qabanqaabadeedii sidoo kale waxaan mahad ballaaran halkaan uga celinayaa dowladda federaalka oo horkacayay ra'iisul wasaaraha qaranka mudane xasan cali khayre oo asaguna muddo 50 cisho ah juhdi geliyey galmudug inay wax noqoto oo hagaagto oo dib u dhisanto isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo inta la shaqaysay wasiiradiisaba sidoo kale culamaa udiinka waa dhegaysanaynay inay si buuxda ugu wareejiyeen dowladda federaalka iyo guddiga qabanqaabada amniga magaalada oo ogolaadeen inay noqoto magaalo loo dhan yahay ayaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin intaa bacdigeed walaalayaal annaga waxaan ka nimid safar dheer baan ka nimid waxaad la socotaan muddo 25 cisho ah 45 cisho ah ayaan hobyo fadhinay shir beelaha galmudug beelo ka mid ah ayaa halkaa lagu hayay shirkaasi guud ahaan wuxuu marahayaa meel fiican ayaa la dhigay wanaagiisu bahdii gaarka ahayd oo iska lahayn iyo bahweynta guud oo galmudugna iyo Soomaaliba insha Allah goor uu soo gaaro ayaan rajaynaynaa wanaagiisu sidoo kale waxaan u nimid annagu iyadoo walaalo badan oo kale oo kamida beesha habargudul halka ku shiraysan ay imaan doonaan mas'uuliyiintoodii iyo salaadiintoodii ugaasas aan filayna mar dhow inay yimaadaan annaguna aan ka soo hormarnay kuwa kalena naga soo horeeyeen dhammaantii waxaan u soconnaa gogasha dib u heshiisiinta galmudug oo beelaha lagu heshiisiinayo dabadeedna la rabo in lagu yagleelo maamulkii galmudug haddii alla yidhaahdo intaasaan u nimid sida aan ugu soo dhaweyseen baan raalli ka nahay